doorka dhalinyarada haddaan hore u noqono xorriyadeennii iyo arrimaha la xiriiray dadkii waddankan badbaadiyay oo gumaystaha ka kiciyay 13 dhalinyaro ay ahaayeen marka taas waxay muujinaysaa oday la'aan ma ahayn xilliga Soomaali laakiin dhalinyarta markastoo ay doorkooda ay qaataan inay u muuqan karto ayaa dhacaysa waxaan rabaa hadalkayga inaan 3 qaybood u kala qaybiyo qayb oo dhanka qoyska ah iyo dhalinyarta markay barbaarayso door ma ku yeelan kartaa in ay arrimahan hadda inay ka maqnaadaan saaxadda ay ka qayb qaadan waayaan midda labaadna waxaan rabaa xagga siyaasadda tan saddexaadna xagga sharciyada ama dastuurkeena Southwest ha noqdo ama kan guud kan koowaad horta xagga dumarka waa ognahay sanadahan dambo doorkooda inay muujinayaan oo markasta ay taagan yihiin laakiin waxa meesha ka maqneen dumarka ayaga laftirkooda dhalinyaro ay leeyihiin waxa meesha ku dulman oo mar walba aad arkaysaa dumarkii dhalinyarta ayaga laftirkooda inay doorkoodii rasmiga ahaa oo xagga dumarnimo aysan helin laakiin markii dumar loo eego xaggooda in doorkii dumarka uu badanaa aad macnaha uu u sareeyo hadda laakiin markaan dhalinyar ka hadlayno waa in mar walba aan ka eegnaa dhanka maxay ahayd rag iyo dumarba labadaba inay dhalinyarnimada ay soo galayso haddaan eegno marka caqabadaha oo xagga qoyska ama barbaarinta dhalinyarta marka hore ay soo baxayaan sidaan ognahay inta qofka macnaha waalidkiisa uu joogo oo hadhow ilaa heer siyaasadeed ama asoo qof weyn ah waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga inuu mar walba tixgelintii waalidka soo eegayo haddii aabihiisa ama adeerkiisa ama la mid ah ee xagga siyaasadda ama doorka ay ka xigaan inuu ka hakado taasoo ahayd in loo empower gareeyo caruurta ama dhalinyarta loo empower gareeyo sidii ay doorkooda ku qaadan lahaayeen loo tababaro laakiin maxaa dhacdo qofka waxa laga yaabaa asoo arrimahaas ku baraarugsanayn oo hawlihii ku halaynayo qofkaas waalidka u ahaa ama waalidiintii dadku ugu aadanaa inuu doorkaas ka maqnaado oo markii uu qofka ka baxo ama dhinto ama meesha uu ka baxa inuu markaas kadib soo baraarugo asoo qof weyna haddana caruurtiisa ay daba joogto ayagana ay doorkii waxba ka ogeyn marka dhanka qoyska arrimahaas oo xagga waa ogtihiin markii shirarka qaar ama reerka ay galayaan dhalinyarta waa laga ilaaliyaa waxa leeyahay adiga dad deeraatiina banaanka jooga maxay ahayd waxa hadlay odayaasha iyo taasoo kale ayaa waxay keenaysaa inuu qofku ku dhiiran waayo inuu doorkiisii muujiyo dhalinyarnimo tan xigta xagga shuruucda markaan ka hadlayna haddaan tusaale soo qaato dastuurka koonfur galbeed oo kale cutubkiisa labaad qodobo farqooyin badan uu leeyahay cutub ugu farqada badan waaye laakiin farqooyinka qaar waxay muujinayaan xuquuqda caruurta xuquuqda dumarka ma jirto farqo si gaar ah u sheegaysa xuquuqda dhalinyarada marka waxa dareemay marka in xitaa dastuuriyan ama sharciyan ay maqan tahay in si gaar ah loo xuso dhalinyarta oo ay isaga dhaxmilmeen qaybihii kale oo bulshada la isaga dhaxmilay oo ma ku cadda in dhalinyarta xuquuqdooda meel lagu muujinayo ama maxay xuquuqahan waxay lahaayeen tan ugu dambaysa xagga siyaasadda markaan ka hadalno arrimaha caqabada ku ah waa la sheegay oo saaxiibada iga horeeyay way sheegeen dhaqaalaha badanaa waa ogtihiin markii hadda siyaasadda la soo galayo kale dhaqaale badanaa ku baxa kuraas sida hadda maxay ahayd waddanka u yaalo markii la gaaro maxay one man one vote Allah na gaarsiiyo laakiin hadda dhaqaalaha waxay ku tahay caqabad waxa kale oo caqabad ku ah da'da waxay caqabad ugu tahay ma jiro retire macnaha meel uu ku cad yahay qofkan uusan ku noqon karin maxay ahayd maxaa xildhibaan ama la dhahayo da'daas xildhibaan ma noqon karo ma jirto waxa la xadiday qaybtii hoose qaybta kore xadidaad ma laana waxa laga yaabaa qofka ilaa awowgiisa inuu macnaha uu yahay xildhibaan awowga xildhibaan aaba joogo wiilkiya joogo ma helayaan fursadaas ilaa awowgu ka baxa meesha baahayna sida ognahayna way ka dhex muuqdaan siyaasadda caqabada kale oo jirto waalidnimada ayada xaggeedana qofka Soomaaliga hadii qofka waalidkiisa uu waxaan hamiyo ayadoo aysan dambi ku ahayn inuu ka garab tartami karo oo cid u diidaysa lahayn inuu doorkiisa qaato ha ka sheekeynaysa marka guud ahaan marka waxay u baahan tahay in la sameeyo arrimo lagu wacyigelinayo dhalinyarta si doorkooda loo dareensiyo si ay waddankan uga qayb qaataan maadaama dhibaatada ugu badan ayaga ay ku dhacdo hadii waddanka difaac u baahan yahay ayaga gala laakiin dhanka siyaasadda markii laga hadlayo ayaga ma lahano waxa way dadka da'da ah ayaa leh marka muhiim waaye dhanka sharciyada in laga eego si loo helo wax dhisay dhalinyarta in la soo kiciyo maxay awoodooda dadka waaweyn loo yeelo xadidaad retire time ka oo la cadeeyo